وأوقتين دل كان في الدنيا ده عرفتين كجيران أو حبس قد حكون يشم بقولوا قاعد ليه كون يشم بقول صومالي صح معه هل مليونين إحراته هدي سراكيش بوليس أي في الدنيا دي أم بخلادات يقلان حنا للسور قليو هل سؤالان ربعين ويديو ذات كيس يحير أيان مور قليان بوليس صدق صوم حران مور قليان وما يموت عندي دم بكش سيدا سان لو سور قليل marka ha ku tala galaan marka hore inay dambi gelin waxaan rabaa in dhowr qodob aan iraahdo oo ku saabsan doodihii halkaan ka socdo nood gareeyay oo garsoorka inta badan muxuu ahaa ku saabsanaa maadaama hadda aanu dhanka garsoorka aan ka socdo taliyaha qaybta muxuu ahaa baarista CID ayaa wuxuu ka hadlay qodob ku waaranada oo kale waaranada markii la soo codsado ina qaybana hore laga soo jaraayo qaybana maxaan ku yiraahdaa xoogaa dib loo dhigayo sida uu tilmaamay qodobka afraad ee xeerka habka ciqaabta waaranka marka la soo dalbanayo sargaalka booliska ee waaranka soo dalbanayo amba xeer laalintu haddii ay soo dalbato waxaa laga rabaa oo shardiga shuruudaha ku xusan ee ah laba shardi in laga helo oo sabab macquul la keeno oo qofka eedeysanaha inuu yahay qofkan waaranka loo jaraayo muxuu ahaa fildimiyadna uu dhaca labadaas qodob in la keeno haddii intaas ay imaan weydo oo aad keento hal warqad oo waaran aad ku codsanaysa aad keento oo hal sabab aad ku sheegin maxkamaddu waaranku ma jarayso marka waa in lagu tala galo xeerka waxa ku qoran in muxuu ahaa laga shaqeeyo oo reportkii horgeynta markii sargaalka booliska horgeynta la keenayo oo laga rabo inuu horgeyn karo 39 iyo 45 ama 39 laga rabo warbixintii inuu soo hormariyo oo baaris bilow inta uu sameeyo oo yiraahdo cadeymahan horraca amba waxaan u haysaa adiladan sidaasaan waaran ku rabaa mana jirto arrin muxuu arinta ku saabsan oo warbixin loo keenay oo maxkamaddu ayna waaran jarin inta ogaalkayga aniga intaas ma jirto marka waxaan codsanaynaa shardiga uu sheegay qodobka afartanaad ee xeerka habka ciqaabta hadii la soo waafajiyo khaladka annaga yeelanayn hadii aan jari weyno arrimahaas arrimo la xiriira jiro oo ku saabsan dacwadaha madaniga dadka Soomaalidu bariyahan waxay barteen wada muxuu ah shortkada ama wada gaaban oo ah qofka markii madani loo haysto oo muaamalada ay dhaxmaray oo nootaayin ay wax dhaxmareen in uu yiraahdo qofka la xiro si uu xaqiisi qofka Soomaaliga markii la xiro wax walba iska ogolaadahay si ugu fududaato in qofkan si fudud wixii looga qaado marka muaamalad madaniyo oo cad oo nootaayin uu ku galay oo isqaabka loo bixinayo cadahay oo waqtiga uu dhamaanin ay wuxuu ku leeyahay waaran ii qofka la soo xiro maxkamaddu waa kala taqaanaa wixii madaniyan waa taqaanaa wixii ciqaab ka dhalanaysan waa taqaanaa si aad darteed qaybo badan oo madani ku saabsan oo laga soo codsaday ana abadiidayba sababta uu diidana waxay ahayd kiis madani oo ahaa kiis ma ahayn criminal ama ciqaab ma ahaynin waarana ma lahaynin umana arag inuu waaran leeyahay xeer laantana sidaas oo kala dhahnaa muxuu ahaa hadii ay shuruudaha soo mareen lama jarayaan dhahnaa marka taas waxaan rabaa inaan dhaliil noqonin bilow hore kiiska la soo dhiso maxkamadduna waxay u taagan tahay in dadkaas dhibaatada loo heesto ay si cadaaladeed u fiiriso dhinacana lama jirto maadaama marka boolisku ay imaanayaan oo boolisku markaas taagan yihiin cidda maqan waa eedeysana qofka la eedeynayo marka maxkamaddu inay ictibaar ay siiso qofkii maqanahay oo meesha ka maqan waa waajib saaran waay arrimaha fulinada ku saabsan gudoomiye saalaxan rabaa inaan hal arrin oo kala xariiqo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo muxuu ah taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Macallin Mahdi oo runtii markii uu yimiday maxkamadaha fulinadooda ay dhaqaaqeen arrintaas waxaan rabaa in ay raad Macallin Mahdi waa mahadsan yahay shaqo fiican oo qabtay markii uu yimidna fulinadii maxkamadda gobolku ay maaragtay xooga ay maaragtay uga shaqeynaysay in ay kiisaskii fuleen laakiin 2023 iyo 2024 hadda isku mid maaha 2023 casr dahabi noo aheeday 2024 waxa aad moodaa inta uu la dagaalamayo social media teamkooda inuu xoogaasi uga mashquulay marka taliyo amaantii yaana kala reebanine qaybta kale inay si dhaqaaqdo qasab caqabadaha ka sheegay in fulinada taageereen oo ku saabsan inay maxkamaduhu wareejiyaan dabcan waa ka warhaysiin dhulal badan aan soo wareejinay duruufu waa farabadan yihiin waa ka warqabtiin shaqada lagu jiray mararka qaar waxaan suuragelaynin in la tago meel la tago oo muxuu ah kiisas la soo wareejiyo suuragal maahan laakiin hadda kadib waxaan halkan ka ballan qaadaynaa oo sheegaynaa dhulkii la fuliyo inuu sargaal maxkamadda ka socdo uu tagi doono oo wareeji doono dhulkaas waa ballan qaadaynaa maanta wixii ka dambeeyana saas ka kaljiisa amba garsooru oo tago amba sargaalku oo tago arrinta ku saabsan dhulalka la fuliyo meediyaha ay ka hadlaan oo cadaalad darro la sheegay ilaa la sameeyay dhahan dhaliilahaas waa waajibaadkiina shaqo inaan ka qabsatiin inta kale ka rabaa haddii ay firdimbeed galaan
oo ay ka shaqeeyaan kicin amba cadaalad laga yaabo qof inuu 10 sano amba 5 sano amba 8 sano maxkamadda darajada koobaad inta ka soo bilaabay dib u eegis maxkamadda sare u soo dhamaatay oo 3 sano 4 sano boolis oo ka daba wareegay maalintii loo fuliyay cadaalad raadacday la yiraahdo arrintaas arrin la aqbali kara maahan laakiin waa shaqadiina idin sheegamayno shaqadiina aad ka qabsan doontaan idan taasna waa qodobka halkaas oo gudba waxaan rabaa arrimaha ku saabsan horgeynta iyadoo caqabada ka taagan yihiin madaxda garsoorka iyo macallimada iyo tiimkaas aan saragnay taliyaha si guud waxaan isla maaragtay jaangoynay inay laga maarmaan tahay in la nidaamiyo caqabada waa jiraan caqabada ma jiraan lagu murmaayo laakiin intii suuragal ay tahay in la xalliyo laano waxa dhici jirtay 2 saac oo subaxnimo markii shaqada la soo galo ilaa 10 saac in midba mar oo wado oo maanta dhan mid la wado dhibaatadaas aan haysata marka waxaan ku asteynay in waqti kooban loo sameeyo qofkii baara ah oo ku soo talagalay inuu horgeyn keeno inuu saacado kooban horgeynta uu sameeyo soo garsooruna qaybaha kale shaqadiisa u qabsado asagana ay u fududaato muddadaas kooban laano maalinta horgeynta garsooruhu leeyahay shaqo kale oo qabsan karo ma jirto marka waxaan ku talagalnay shaqadii inuu qaybta qabsado qaybta horgeyntana oo qabto waqtina la xadido waana lagu soo caanamaalayo muddo ayaa lagu waday haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah inay arrintaas ay qabsoomi doonto ay sii socon doonto baarihii ka soo dib dhaca waqtigana waa soo celinaa waxaan dhahnaa dib u laabo ee biri kan waqtiga loogu talagalay si uu ugu talagalo in aanu biri ka soo dib dhicin waxaa jirta caqabado garsoorayaasha qaar ay sheegeen oo ku saabsan fulin la'aanta awaamiirta ka soo baxda garsoorka ka soo baxda sida ogtihiin amarka garsooraha waa in la fuliyo waxa boolis ka shaqeeyana waa sharciga wuxuu fuliyo waxa waaye amarada garsoorka ka soo baxa sida darteed xoogaa caqabada ayaa waxay ka jiraan arrimahaas waxaan rajaynaynaa maadaama dhaliilihii iyo la sheegay sixitaanka ka hadlaynaa waxaan rajaynaynaa arrimahaas inay saxmaan oo amar garsoore ka soo baxay oo garsoore soo qiimeeyay inaan meel la iska dhigan oo shaqadii la qabto waan rajaynaynaa macalinka iyo taliyuhuna waa joogaan oo arrintaas aan rajaynayno inay wax ka qaban doonaan waxaa jiray taliyaha odaga halkan fadhiya maaqan magaciisa taliyaha hoggaanina u yahan qiyaasa garaar wuxuu yidhi haddii saraakiisha boolisku ay fildambiyeedyo amba khaladaad ay galaan hana la soo wargeliyo hal su'aalaan rabaa inaan weydiiyo dadka ay soo xirayaan ma wargeliyaan boolisku soo dad soo ma xiraan ma wargeliyaan waa maya ma ogta ciddii dembi gasha sidaasaan loo wargelinayn marka ha ku talagalaan marka hore inay dembi gelin wixii khalad hoo la xalli karo aan ahaynin wax weyn macnaheedu waxa waaye wixii laga talaabi karo waa laga talaaba laakiin fildambiyada gelina hana la soo wargeliyo daw maahan anaguna dadku waa soo xirxirina waa aragteen macallimaha dharkii oo intuu soo geliyo ku soo xiraay bariyaa dadka uma sheegi leen haduu sheegi lahayn la heli ma lahayn marka aan loo sheegay anaguna wax sheegi mayno xogaa waxaan islaahay sax ma arrimo waxaa jira caqabado guud oo taagan oo ku saabsan xabsiyada waxaan u maleynayaa taliyaha qaybta bari ah wuxuu ka hadlay Daawud wuxuu ka hadlay dhowr caqabado inay jiraano taliyaashii saldhigyadu ay la daaladhacayaan maxaabiis fara badan oo meesha lagu xiray dabcan run waaye waan ka warqabnaa odayaasha garsoorka iyo booliska iyo kulli waa ka shirnay 100 jeeraan maxaan ku raaa madaxda ula tagnay laakiin ugu dambeyn go'aanka ugu dambeeyo la qaadana waxa waaye amba in la qaato ay tahay in inta lacag la bixiyo la dhiso xabsi la dhiso waa ogtiin dalkan fildambiyada aragteen oo ay ka jiraan oo xabsiga dhexe 1500 oo qaada leeyahay 1500 Soomaaliya sax ma 1 milyan in ay xiraatay laakiin 1500 waxa loo laayahay meel lagu xiro mase iguma raacsanin Soomaaliya 1 milyan xiraatay marka 1500 xiran meel loo laayahay inta kale marka dalkan waxaan u maleynayaa dal horumar oo fildambiyada ka jirin saasay u muuqanaysaa sidaan u xisaabtamayno arrimahaas way jiraan macallimada iyo waa aan ka galnay oo aan raadina xataa maamulada aan u tagnay inay wax u noo dhisaan laakiin arrimahaas waa arrin go'aanka kama dambaysta aan lahaynin go'aanka kama dambaysta oo dhaqaale ku xiran yahay macallimadina uu leeyahay 300 litir aan leeyahay 300 macallimada markuu daay ka hadlay oo saldhigyada uu ka hadlay annaga garsoorayaasheen 1 litir ma balhanba asiga 300 oo haystaan waxaan haysanaa ma jirto marka moogtahay waa dhibaato weyn arrimaha ku saabsan gudoomiyaasha degmooyinka ee maamulada iyo taliyaasha saldhigyada macallinkuna waa ka hadlay wax badanaana ka wada hadalnay arrinta ku saabsan kuma waafaqsanay in gadaal looga sheego oo wax badan oo aniga asiga isla ognahay jiraan waxba aan la sheegin wali laakiin
waxaan rabnaa taliyaasha saldhigyada iyo gudoomiyaasha degmooyinka inta isku milma dadka u heshiiya dhibaatada ku dhigay inay ogaadaan arintaas inay nasaxeen maamulka shaqaa kala dhaxaysa in suushkan ka socoto waa boolis waaye cadaalada ka shaqeysa fuliye cadaalada tahay dadka waxa la rabaa kii dib wadana inaad qabato kii dhibana ah oo muxuu oo dib oo heestane oo dib muxuu ahaa maalin kasta ku dhacayna inaad xaqiisa u raadiso waaye waxa laga rabo laga ma rabo inaad guri inta aragtiin adiga gudoomiyaha degmada inta isku waafaqdiin oo gudoomiyuuna soo dhameeyo processkeeda aduna dadka ka saarta sax ma marka waxa loo baahan yahay taliyaha saldhiguna shaqadiisa inuu qabsado tali muxuu gudoomiyaha degmadana shaqadiisa inuu qabsado haday u muuqato gudoomiyaha degmada inuu faldimbiyeed oo galaayeen inuu waara soo dalbado laakiin inta ku milmo dadkii loo heshiyo dadkii muxuu dhibaato lagu noqdo sax ma ahan wixii laga shaqeynayna waxay noqonayaan waxba kama jiraan waxaan rabaa hal arrin inaan ku soo gabagabeeyo oo caqabada oo taagan oo runtii wax loo cuskadana aan noqonin oo ku saabsan taraafikada marka la joogo xeerka taraafikada wuxuu dhigaa faldimbiyeedyo qofku markii uu khaladaad sameeyo oo muxuu ahaa wadamarista oo khalad faldimbiyeed ka galo muxuu ahaa laba ciqaabo dhiga oo ah ama dhowr ciqaabo dhiga oo ah mar in la xiro waa dhiga waxa kale oo dhiga ganaaxyo waa dhiga waxa dhacday kiis maxkamadda ka dhacay oo garsoore gal loo keenay arrin ma taraafikada ku saabsan oo maxkamadda ka garnaqday oo la ganaaxay oo wasaaradda maaliyadda xafiiskeeda maxkamadda lacagta lagu soo shubay oo qofkii la sii daayay oo markii uu tagay qaybtii uu tagay la yiraahdo lacagtan iska bixmaysid qofku waa noo soo laabtay wuxuu yiri inuu dhibaatadaana ay hayso ودبعتني محا عدينو هيسا وابحي لعقتي وسو شبay warqadiyo keen oo muxuu taraafikada lacagti looga qaaday tii qasnada dawladda waa haya tii kale waa haya waxa isweydiin mudan marka qofka eedeysanaha ee ciqaab ganax ku dhacday sidee meeqa ganaxa la saara saysan loo saara ma maxkamadda saaraya qasnada dawladda lagu shubaa mase taraafikada si gaar ah u saaree arintaas arin iskaaliyaad muxuu ka dhalta waay laakiin taliyaha waa joogaa si gaar ah dabcan arintaas loo hadli doona waxaan qiraynaa runtii booliska Soomaaliyeed hadda ka shaqeeya gobolka Banaadir inay wax weyn iska bedeleen insha Allah taala wada shaqeyn fiican annaguna diyaar waxaan u nahay wax kasto caqabada hoo taagan maamul ahaan inaan xalino garsoorayaasha hadda inta badan waxay la macaamilaan galka iyo qodobka iswaafajiyaan wixii maamul ku saabsan annaga iyo madaxda booliska ka wada hadli doona hadda la yiraahdo wixii gal iyo dacwad ku saabsan garsoorayaasha iyo waxa ku xisaabtami doona taliyaasha saldhigyada mid ku tala galaano waa la idin xariisaayeen ku soo talagelin niman dagaal u socdo way hubkooda soo qaataano waxooda soo diyaarsadaano baarisooda soo sameeystaano hungaarkooda ha sameeyano cadeemahooda soo waafajiyaano wax ay ku meeltay karaan hal yimaadano laakiin wada shaqeynta hadda waa fiicnaatee meeshan xariisa taal macnaheedu ma waana mahadsantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh